إلهي أكتي سنة مرك ميزان لصارو كميزان لصارو لا ضمان مايو جناح بعوضة للما يقرب كذا بوضاي نبي صلى الله عليه وسلم ننك النوع عاسه وحا كقيمة بضن وكعسلانايا كنعذا بالكذا تاسو تلمامي نبي صلى الله عليه وسلم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ما لنت قيامة وزن ميزان في المينو وكناعو كناعو تقانا سيدة إلا اكتهي هدنا إيضو دان حتى معها وبال كذا قرب كذا إن لأك أساق قرب للماء أياق تيس سبحانه وتعالى وحانو أوغينا مركا مجرد ويري haddaba qofka muslimka waxa lagu qadariyo waa diin qofka waxa sharaf iyo qiimo uu ku yeesho awaamir ilaah oo la fuliyo subhanahu wa ta'ala waa diinta ilaahi oo kor loo qaado subhanahu wa ta'ala waa awaamirta ilaahi u degdegeeda taasa qofka sharaf iyo wanaag uu ku gaaraya izzi iyo qiimo uu ku yeelana haddii gabartu ay soo baxdo ayadoo caariyaad ah oo diin ilaahay aan shaqo ku lahayn oo qur'aan shaqo aan ku lahayn oo xumaan iyo fisqi iyo macaasi iyo wax walba ay ku dhex jirto haddana nolosha tan ugu fiican ay ku jirto ay dahab guntato oo mataqaanaa moodelada dharka ugu dambeey ay xirato oo wax kasta ay yeeshato alla agtiisa qiimo ay ku leedahay ma jiro tu aan waxaasoo dhan haysanin laakiin awaamir ilaahay ku socotay ayaa ka qiimo iyo sharaf fiican fiiri xadiiska nebiga sallallahu alayhi wasallam imra'a iyo naag sawda ah oo madow ayaa waxay xaaqi jirtay masaajidka nebiga sallallahu alayhi wasallam ama wiil buu ahaabay riwaayad kala tilmaantay nebigaa waayey wuu waayey rasuulka mar allaala markuu dhowr jeer masaajidkii ku soo noqnoqday ayuu waayey fasa'ala canha aw canhu waa su'aalay aaway buu yidhi gabadhii masaajidka xaaqi jirtay dahab ma wadato waxay wadata ma laha nolosha ay ku jirto waa nolol daciif ah laakiin maxay haysaa diin ilaahay maxay haysaa salaad aan dhaafin maxay haysaa qeyr ay ku dadaasho beydka ilaahay ay nadiifisaa subxaanahu wa tacaala way xaaqdaa ama wuu xaaqaa waxay yidhaahdeen maata aw maatat way dhimatay nebigu wuxuu yidhi afalaa kuntum aadantumuunii maxaad iigu soo sheegi weyseen sha'nigeeday yaraysteen fakaannahum saqiruu amraha aw amrahu amarkiisay yaraysteen waxay is yidhaahdeen waa wax dhulka xaaqi jiree waxba nebigayaan la soo dhibin nebiga maalintaa wuu xanaaqay afalaa kuntum aadantumuunii bi maxaad iigu soo sheegi weyseen aadantumuunii maxaad ii soo ogeysiin weyseen war ma taqaanin sha'nigeeda cidniga qiimaha ilaa agtiisay ku leedahay subxaanahu wa tacaala dulluunii calaa qabrihaa qabrigeeda hadda itusa buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam saa ugama harin waayo xushmad bay leedahay waa ahluddiin shaqaday haysa waa shaqo daciifa markay dadku fiiriyaan meel bay xaaqdaa haddana adduunku waa ku daciif haddana hanti iyo xoola ma laha haddana ma aha dadka la qadariyo isha buuxiso laakiin ilaahay agtiisa ayay ka tahay cadiim ilaahay agtiisay qiimo ka leedahay hadda igeeya buu yidhi idinkaa ii soo sheegi waayey markii hore qabrigeeda nebiga qabrigeedaa la tusiyey waa dul istaagay waa u duceey ama waa ku tukaday intaa ka bacdi buu yidhi inna haadihi alqubuur qabriyaashaan agteeda ku yaala dhammaan dadka ku duugan iyo ehelkooda mugdi baa laga buuxiyey ilaahayna wuxuu ku iftiimiyey bisalaatii calayha salaadii aan ku tukaday ama ducadii aan u duceeyey yuu ilaahay ku iftiimiyey subxaanahu wa tacaala saa darteed waxaa la tilmaamayaa qofkii qadarin raba qofkii in la qiimeeyo raba qofkii raba inuu kor noqdo ilaahay diintiisaa lagu kor noqdaa subxaanahu wa tacaala ilaahay diintiisaa lagu sharafoobaa subxaanahu wa tacaala ilaahay diintiisaa cadaalad iyo horumar iyo wanaag uu ku heli karaa sidaa darteed buu nebigu yidhi rubba ashcafa badanaa mid ashcaf ah waa mid basaasan asagoo dhan boor yeeshay oo madfuucu bilabwaab arbaabaha laga soo xirxirto madfuucu bilabwaab low aqsama cala allahi la abara hadduu ilaahay ku dhaartana ilaahay uu u baarinimo fala subxaana wa tacaala ilaahay waa u baarinimo falayaa sidaa darteed ayaa qof kasta oo muslim ah jannada raba wuxuu aad ugu dadaalayaa waxay tahay inuu waddada khayrkaa markaa maro qumtu calaa baabi aljanna buu yidhi nebiga albaabka jannadan isdul taagay faidaa caamat man dakhalaha almasaakiin intii gelayso ku tilaabsanaysay masaakiinta ugu badnaa wa asxaabu aljad dadkii hodanka iyo lacagta iyo deeqda u saaxiibkaa maxbuusuuna way xabisan yihiin bannaankay taagan yihiin qoladaana way gelaayeen albaabkeeda oo way ku aruuraayeen masaakiin marka la leeyahay ma aha masaakiin ilaahay ku kibirtay subxaana wa tacaala
oo sabri weysoo diin ilaahay raaci weysay subxaana wa tacaala, nin hanti iyo xoolo intuu waayey masaajidka ilaahay imaan waayoo yidhi ilaahay asagaba waa inacay subxaana wa tacaala, ninka noocaasa loolama jeedo. ma loola jeedo qof masaakiin ah oo intiqaacadii ilaahay ka fogaaday, haddana wax walba oo waddo xun ah ku dhex jira, hadday sariqo noqoto, hadday xadid noqoto, ilaahay oo laga eed sheegto hadday noqoto, arrimooyin fara badan oo noocaasa ma aha. laakiin waa miskiin diinta alla taajirka ah, waa miskiin diinta ilaahay ku xoog badan, waa miskiin adduunka ka tabar yar aakhirana ku xoog weyn. ninka noocaasaa loola jeedaa. way sii gelgelayeen, way ku tallaabsanayeen. inta ugu badan ee gelaysay ayagay ahaayeen. dadkii dheefta lahaa, dadkii xoolo qabeenka ahaa maxbuusiin bay ahaayeen. waayo inta badan qofka xoolaha leh wuu ka dib dhac badan yahay dadka aan xoolaha lahayn, xagga salaadaha, xagga diinta, xagga awaamirta ilaah subxaana wa tacaala, xagga khayrkii wanaagii waxyaabaha kale. xataa iska daa wax kale, dadka asxaabuljaddiga ah ee dheefta iyo xoolaha u saaxiibka ah, ayaga iska daa inay khayrka iyo dugsiyada iyo meelaha qur'aanka laga barta ay yimaadaan. xataa ciyaalkooday kala faanaan inay dhex fadhiisiyaan. kan ugu fiican baa dhahaya hala ii keena macallin guriga aan wax markaa ku siiyo, oo ciyaalka guriga ugu yimaadaan. dadka noocaasa maxbuusiin bay ahaayeen, way xabisnaayeen oo bannaankay markaa taagnaayeen. asxaabu naar xataa waa la amray inay naarta galaan. xataa ahlu naarkii baa ka hormaray inay naarta galaan. albaabka naartaan istaagay buu yidhi nebiga, faidaa caamatu man dakhalaha annisaa. inta gelaysay ugu badnaydna dumarkay ahaayeen buu dhahay nebiga sala allahu calay wasalam. waa xumaantoodoo badan, waa nacaladoodoo badan, waa khayrka iyo wanaagii ixsaanka loo sameeyey qaryaan oo badan, waa macaasida iyo awaamirta ilaah oo ay ku dhiiran yihiin, waa xijaab la'aanta, waa caariyaadnimadoo bannaanka lagu baxo, waa inay ka fog yihiin mar walba awaamirta ilaah subxaana wa tacaala. ayagoo mataqaanaa sidaa ah ayuu ilaahay nebigiisa ku tilmaamay inay sadaqada ku dadaalaan, waxbixinta ay ku dadaalaan, qadabka raxmaanka demisaa, dembi dhaaf weydiisiga iyo sadaqada badiya. waan idiin arkay inaad tihiin caama ahlunaar kuwa ugu badan, si ilaahay idinkaga badbaadiyo, oo awaamirta iyo khayrka ilaahay ku dadaala, si ilaahay jannadiisa iyo wanaaggiisa idin siiyo. xaaladdu saasay markaa ahayd. haddaba qof kasta in allaala intuu awaamirta ilaahay fuliyo oo khayrkii wanaagga uu ku dadaalo, ilaahay sharifaa, korna u qaadaa subxaana wa tacaala. nebigu wuxuu yidhi wax yaraan ku hadlay ma jira ilaa 3 qofood maahane. 3 way ka badnaayeen, laakiin xadiiska ayaa 3 isku mar sheegay oo markaa soo ururiyey. waa nebi ciise calayhi salaam. ciise mar allaala markay hooyadii dhashay, gabar fiican bay ahayd oo mataqaanaa cafiifad ah oo dhowrsan. wax guur ahna markaa laguma ogeyn. masaajidkay ka khidmayn jirtay. yaa maryamu uqnutii lirabbiki wasjudii warkacii maca araakiciin buu ku yidhi ilaahay. maryamee rabbigaa ateec. yaa maryam waan ku doortay buu yidhi ilaahay. waxaan kaa doortay calaa wataharaki, waan ku nadiifiyey. wastafaaki calaa nisaa'i alcaalamiin, caalamka dumarka jooga oo dhan ayaan kaa doortay ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. bacdamay sidaa tahay ayay ciise dhashay. waxay ku dhashay guur la'aan, waxay ku dhashay aabba la'aan. mar allaala markay aflagaadeeyeen oo ay dhaheen yaa ukhta haaruun maa kaana abuuki imra'a saw'in wamaa kaanat ummuki baqiya, aabbahaa nin xumaan la ahaa ma ahayn, nin fiicanoo akhyaara ayuu ahaa. hooyadaana naag baqiyad ah oo dadka xunxun ah ma ahayn. canugan xaggeed ka keentay? fa ashaarat ilayhi, fartay ugu fiiqday. waxay dhaheen kayfa nukallimu man kaana fi lmahdi sabiyan, seen ula hadlaynaa canug yar oo hadda dhashay oo dhabta markaa ku jira? ilaahay baa ka hadlisiiyey. muxuu yidhi innii cabdullaahi aataaniya alkitaab wajacalanii nabiyan wajacalanii mubaarakan aynamaa kunt waawsaanii biالsalaati waالzakaat maa dumtu xaya. saasuu ku hadlay ciise calayhi salaam. addoon ilaahay baan ahay. innii cabdullah waa hadalka ugu horreeyey afkiisa ka soo baxay. cubuudiyanimo ayuu isku qiray. lan yastankifa almasiix an yakuuna cabdan lilah. nebi ciise kama kibro inuu addoon ilaahay u yahay subxaana wa tacaala. maanta waa laga yaabaa gaalada gobol ka mida inay dhahaan waa ilaah, ama waa wiil ilaah, ama waa ilaah kii saddexeeyey. saa darteed asagaan ka kibraynin. lan yastankifa almasiix, masiix ka santaagi maayo, waa nebi ciise, an yakuuna cabdan lilah, inuu ilaahay addoon u yahay. wala almalaa'ikatu almuqarabiin, malaa'igta muqarabiinta ka santaagi maayaan. qofkii istinkaaf la yimaada oo santaaga oo ka kibra, ilaahay jahannamuu ku aruurin subxaana wa tacaala. idan hadalkii ugu horreeyey ee nebi ciise uu ku hadlay wuxuu ahaa innii cabdullaahi, ani addoon ilaahay ayaan ahay.
aataaniya alkitaab kitaab buu isiiyey wajacalanii nebiyan nebi buu iga dhigay wajacalanii mubaarakan mid barakaysan buu iga dhigay meel kastoo aan joogo wuxuu ii dardaarmay salaad iyo zako in allaale inta aan noolahay inta aan noolahay zake iyo salaad buu ii dardaarmay ilaa subxaana wa tacaala. haddaba ninka koowaad waa nebi ciise calayhi assalaam. ka labaad ee yaraanta ku hadlay waa jurayj wuxuu ahaa baa rajul caabidan nin cibaado badan ilaahay ku xihan subxaana wa tacaala. wuxuu samaystay sawmaco meel la yidhaahdo waa mawlac ayuu samaystoo dhoobo iyo waxa uu ka sameeyey wuu isaga dhex jiray. asagoo isaga dhex jira oo ku cibaadaysanaya oo ilaahay ku caabudaya ayaa hooyadii u timid maalin wahwa yusallii asagoo tukanaya waxay tiri